Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to our Osman Banjar channel for studying English language and Somali language history and vlogs. So today we take our second lesson. We are going to take our second lesson of today of the English language. So before we have studied the alphabets of the English language, but today we divide into two parts, the consonants and the vowels. So shalay waxaan soo baranay cashirkeeni alif beetadan soo baranay maantana waxaan u kala saareynaa shibane iyo shaqal. Marka shibanuhu waxaan ku qori doonaa farta buluuga ah halka aan shaqalkuna ku qori doono farta jaalaha ah halka farta jaalaha aan ku qori doono. Marka waxaa jirta y oo kamid ah maxaa la yiraahdaa shibanuhu, laakiin si indirect ama marka qaar u noqoto qaab dhawaaq ahaaneed u noqoto vowelska. Marka ayadana waxaan ku qori doonaa far madow ah ama qad madow ah, color madow aan ku qori doonaa. Marka colorka buluuga waxaan dhahnaa waa shibanaha, colorka jaalahana waa shaqalka, colorka maxaa la yiraahdaa madowga ahna waa wayda oo shibane iyo shaqalna noqota. Marka shaqal joogto ah ma aha, waa shaqal qaab dhawaaq ah ay u noqonaysa, laakiin waa baran doonaa. Laakiin shaqalada joogtada ah waa 5 shaqal, 21 ka midana waa shibanaha. hase ahaatee wayda ayaa marmarka qaar waxay noqotaa shaqal. qaabka ay u noqonaysana si toos ah wayda shaqal waa uma dhaheene, waxay u noqonaysaa qaab shibanaha, laakiin si joogto ah waxay u tahay waxay qaab dhawaaqay waxay u noqonaysaa shaqalka, laakiin si joogto ah waxay u tahay shibanaha. Marka aan fiirino formkan aad arkaysaan waa formka alifbeetada ah. farta jaalaho idil waxa waaye maxaa la yiraahdaa waa shaqalka, farta buluuga ahna waa shibanaha, farta oo maxaa la yiraahdaa madowga ahna ama xarafka madowga colorka ahna waa waydana shibanahay ka tirsantaa, balse xilliyada qaar shaqalka qaab indirect aan toos ahayn ay aga mid tahay. marka waxaan fiirinaynaa marka maanta the consonants muxuu yahay shibane, the vowels maxay yihiin shaqal. af Soomaaligan shaqal iyo shibane uu leeyahay, Englishku uu leeyahay, luqad waliba dunida oo macnaha ka jirtana shaqal iyo shibane way leeyihiin, hase ahaatee way ku kala duwan yihiin. okay, qaarna qaabka loogu dhawaaqayo kala duwan, qaarna waxa waaye shibanaha iyo shaqalku markii alifbeetada la baranayo waa la iskula bartaa, qaarna waxa waaye maxaa la yiraahdaa wuu kala saaran yahay oo kale. sida af Soomaaliga shibanaha kaligiisa marka hore la bartaa ba ta ja ha ila iya, kadibna waxaa la bartaa shaqalkii a e i o u. laakiin Englishka waxaan hore ugu soo baranay the alphabetigiisa ama ingaadiisa qaab ay isugu jiraan shaqalka iyo shibanihi. laakiin maanta shaqalka iyo shibanihi 26 kaas xarfood isku jiray aan waxaan rabnaa inaan 21 shibana iyo 5 shaqala aan kala qaadno, iyo inkastoo wayda marmarka qaar qaab dhawaaq ahaaneed ay u noqon karayso shaqal. okay, let's begin. aan bilowna marka meeshan waxaa inoogu muuqato waxa waaye the consonants waa shibanaha. the consonants waxaa la yiraahdaa shibane, the consonants shibanaha ayaan baranaynaa. okay, anagoo ka bilaabana marka b c d f g h j k L M N P Q R S T V W X Y Z. marka intaas aan soo sheegay waxa weeyaan maxaa la dhahaa waa consonants. shaqalku muxuu yahay marka? the vowels waa v kelmada the vowels shaqalku the vowels shaqalku waxa waaye waa a e i o alena o madayna o u waa a e i o u. shantan waa shaqal, iyo y oo marmarka qaar shaqalkana ka mid noqota laakiin qaab indirect ay ka mid noqota. marka waxaan fahamnay 5 shaqal ah iyo waxaan fahamnay 21 shibana ah iyo waydo marmarka qaar
shaqalka qaab dhawaaq ahaaneed u noqoto. Then we understand our lesson of today. Cashirkeena maanta waa fahamnay. Then waxaan u qalin qaadan doonaa then sidii aan u bara lahayn xarfahan aan hadda baranay sida looga dhigi lahaa eray macno taabanayo. Kadibna waan sii dhaqaaqi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka maanta waxaan baranay shibanaheena iyo shaqalkeena. waxaan idin leeyahay marka mar waliba xifdiya casharadan ama alphabetigan xifdiya. Chance aad haysataa qalinkaaga ku qoro, try to memorize. Familkaagana kaga faa'iiday. haddii aad macallin tahayna videogan ardaydaada waa la wadaagi kartaa. waa mahadsantihiin dhammaantiinaba. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.